warar hoose lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka soomaaliya amar xoogan kusoo rogi doono guud ahaan xarumaha waxbarashada ee sida gaarka loo leeyahay. Amarkani ayaa quseeya in xarumaha waxbarashada ee sida gaarka loo leeyahay inay fiisiyaan carruurta Soomaaliyeed ee aan awoodin dhaqaalaha fara badan ee waxbarashada lagu bixiyo waxbarasho free ah. Jaamacadaha iyo iskuulada gaarka loo leeyahay ayaa la sheegayaa in amarkan uu saameyn doono, isla markaana la sheegayo in guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay heli doonaan waxbarasho free ah. Magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya ayaa ku yaalo waxbarasho brevet ah, isla markaana u badan jaamacado iyo dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ayaa la sheegayaa inay helin carruurta Soomaaliyeed qaarkood waxbarasho free ah, isla markaana iska bixi karin dhaqaalaha. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan la sheegayaa in jaamacadaha iyo iskuulada amarkaasi kusoo rogi doono dhammaadka bisha soo socoto. Amarkani ayaa si weyn usoo dhaweyn doona guud ahaan carruurta Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka iyaga masaakiinta ee aan awoodi karin dhaqaalaha fara badan ee waxbarashada lagu bixiyo. 27 sano ugu dambeysay dalka Soomaaliya ayaa lahaa waxbarasho brevet ah, isla markaana ay tagaan carruurta faamiladooda awoodi kara, halka kuwa kale ee masaakiinta ah ay darbi jiif iyo guryaha iska joogaan. Tani ayaa sidoo kale si weyn u sii qaadi doona himilada loo lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana arrinkani weli aan soo bandhigin guud ahaan madaxweynayaasha hore ee ka horreeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wixii kusoo korra wararkeena dambe ayaad kala socon doontaan.